sida ay ku soo warramaysa wariyaha VOA-da Karla Khaliil tirada sii kordhaysa ee muslimiinta Maraykanka ayaa keentay in iibsiga hilibka xalaalka ahina uu sii kordho. ganacsato Soomaaliya oo Maraykanka ku nool ayaa ku jira dadka sida weyn uga ganacsada hilibka xalaasha ah. Cabdisalaan Aadan Xabar waa mulkiilaha Bakal Market oo hilibka xalaasha iyo badeecadaha kaleba lagu iibiyo, kaasoo ku yaala magaalada Columbus ee gobolka Ohio. qayb ka mid ah waxay ka timaadaa dibadda Australia iyo New Zealand, qaybna waa local waaye, waa Maraykanka gudihiisa. marka Australia hilibka naga soo gaaro waxa waaye hilib ari iyo hilibka geela iyo lo'da, saddexdaba way naga soo gaaraan. localka waxaa naga soo gaaro fresh oo ari ah oo aan ka qalno beero agteena ah, annaga aan tagno dad Soomaaliyiin ay ka shaqeeyaan qaarkood, iyo waxaan iskale niman muslimiin ah. waxaa kaloo gudaha naga soo gaaro hilibkan la yidhaahdo hilib lo'da, asna waa local qaar ha naga soo gaaro oo Maraykanka gudihiisa ah. marka dhowrkaas meelood ay naga soo kala gaaraan. dadka Maraykanka ee muslimka ahayn ayaa soo baranaya cunista hilibka xalaasha iyagoo ka adeegta dukaamada amaba ka cunteeya mukhaayadaha ay muslimiintu leeyihiin. Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa mulkiilaha mukhaayadaha Afro Deli ee gobolka Minnesota. Kaahin ayaa sheegay in macaamiishiisa 95% ay yihiin Maraykanka aan muslimiinta ahayn. gobolkan Minnesota waxaa aad ugu badan ilaa 200 oo kun oo qof oo muslimiin ah degan. marka hilibkeedu waa xalaal. marka anaguna waxaan dadka baraa oo u sheegnaa waxay ku kala duwan yihiin hilibka xalaalka ah iyo hilibka aan xalaalka ahayn. marka waxaad moodaa inay dadka daneeya hilib si fiican loo soo qalay inay cunaan inay soo badanayaan, way ka mid noqotayba waxyaabahan horumarka casriga oo inaka diinteeda na fartay. laakiinse iminkay soo fahmayaan neefka xalaasha loo qalo iyo neefka la toogto dhiigga ka daadanaya iyo caafimaadka ku jira, taasina waxay noo noqotay iyadoo mid aad u fiican. Haarun Latiif waxa uu madax ka yahay shirkadda Dinar Standards oo daraasad ku samaysa suuqa hilibka xalaasha ah. waxa uu sheegay in dad badan oo Maraykan ay hilibka xalaasha gataan iyagoo xitaa aan ogeyn. Halal meat is available in many of the large retailers, Costco, Walmart, as well as hilibka xalaasha ahi waxa uu yaala dukaamada waaweyn sida Costco, Walmart iyo dukaamada sida gaarka ah loo leeyahay. mar walba calaamadda xalaal laguma dejiyo, waayo waxay marmar ka baqaan in dhib ka timaado dadka aan muslimiinta ahayn. They may actually fear a backlash from non-Muslim consumers. mar haddii haddaba hilibka xalaasha ahi uu ka yimaado dalal aan muslim ahayn, ayaa Cabdisalaan Aadan Xabar waxaan weydiiyey sida ay ku hubiyaan in hilibka ay helaani uu xalaal yahay in kale. waxaan ku xaqiijinaa laba qaab waaye. qaab indhaheen annagaaba tagno oo dad muslimiin waa joogaan, Soomaali qaar ka shaqeeyo oo waa hilibka ariga oo freshka oo aan doonano, annagaaba tagno beertii aan tagnaa. kan kale ama waddan gudihiisa ka yimaado ama dibadda ka yimaado wuxuu leeyahay astaan buu leeyahay. astaambadaas marka waxa waaye astaamba islaamig ah ayaa ku dhegan oo culummada North America ay hore u baartay u ogaatay, muxuu ahaay ka Australia ka yimaadaan sidoo kale. marka astaambadaas ay leeyihiin oo xalaal inay tahay caddayn. daraasad lagu sameeyay dalka Maraykanka ayaa lagu sheegay in markii la gaadho sanadka 2024 uu qiimaha suuqa hilibka xalaasha ah ee Maraykanka noqonayo $2.55 trilyan. marka haddaba leega xilligan la joogo waa kuwa dalalka hoggaanka u haya qaybinta hilibka xalaasha ah. waa kan mar kale milkiile Cabdiraxmaan Ciise Kaahin. waddanka Brazil oo boqolkiiba lama oran karaba percentage ma jiro oo dad muslima, iyo Australia oo xoogaa ku nool yihiin ayaa ugu weyn suuqyada haysta. waxaa kale oo cajiiba tobanka waddan ee ugu horeeya ama dhoofiya xoolaha Soomaaliya inay kamid tahay oo la qiyaasay inay report ay sameeyeen Al Jazeera iyo hay'ad Dubai laga leeyahay 400 milyan ayaa Soomaaliya sanadkii xoolaha la dhoofiya. laakiinse iyagu xoolaha ay dhoofiyaan oo xoolihii oo nool weeyaan. laakiinse Brazil iyadoo la qalay oo la xalaaleeyay ayaa laga iibiyaa adduunka muslimka oo haddii adeegtid boqolkiiba 90 digaaga laga cuno Middle East-ga iyo Africa wuxuu uga yimaadaa waddanka Brazil oo iyagu horumar dheer ay